السلام عليكم أصحابتنا قالي كل شنال كنا سود هذا قاعد فريق قلب فريق إيميل اللي ذيك جعليه كسود هذا أصحاب عن جعل هاي همبل يا سومالوين ميلو البيت جوكتو وحفلة دين قروح بدنا إيكو لولي إسيدنا وقد عذي وأنكر إيك دعذي ما شاء الله لو ما كلا هرنا وقد حفلة ده حوس عنا دمالدك أنت كيش أنت فرحيو كو لولي كيش أنت عاوا كوغلوليا إيش نطاي أنكرة حفلة أنكرة سيء عضي يصير كوغلوليا أو دبالدقني يصير سوا شو أنا أكسر أصحابي حفلة هول كل قريب لها يا أسرنا بابور كتاكسي أو حنوجس ودجيدن ككلا بوندا هنسو مرونا بوندا هنسو كرمرونا مركا حاجة جينا مكينين فرحي حاجة مشغولة هاي حوجا شقيرة أصوب بحذي إيسو سميسناين أنا كناجين وحنا هنا ورمان تكود لولي وقدرنا هي وأنا كسي تجينا لما كنت شقد وضع يسوى وطنها إذا كسر بيستان مركب فرحية عدي عنيجا الرحمة وبدنين عن صباحني مش أنا هي مش حفلة دي إيماني يريد لي جل لها يريد قلدنا إيماني يريد كلنا كسر قلنا هاد يريد أني ما هن يريدك جلهن عموما نسورك سنة ماني حفلتيني يا ما كان قبتاني كدب هولك حفلتي يا إيماني يس والله حالسيا إن بعدي هنا قدام دقنا كود لولي أنت كسوق هدي أهانلت مدحتني مسؤولين تاني شرفت بدنا دمان صودا مرت شرفت سومالوين إماتي أرضي السوق وش حفلة دان قروح بدلنا دمان صوت أنتوا حنكليا أدا وما سنتين سيدا قروح بدلنا حفلة دا أنا وجسوا قوان قابسين مرتدى حال جوكتي ودنك التركي إنه تشوجنو يا مرتدى ذا وعدتك تركي ذا هاي حال أنا كمرتينو حال أنا كمرتينو لا هاي ما فهمتي ما دام سنة جورديني كسر قريب قليل كانوا حاليا هذا وما سنتين والله وحاكونا حال حفلة إن بعدهن عن مشاس نقول الصور دقي هذا نحاسو جلسوا مدحذيني وبنيا waxaa sugoonaa madaxdeena sharafta badneeda soo socdaan mas'uuliyiinteeni anakana mataleysay anaka dad baana matalo walaalayaal ma fahanteen magaca Soomaali hadana ma sha Allah sanad guura wanaagsan سفاعنا رسول دوينا ومدحنا سعبكي مورالك انت ايكا فريسانا يان بوسسك لوغو تلقلي وما تنتين دمانتينا حتى نوحن برنامج كفر فرانينا هيستا علي محمد عمر سيدو كله وحنا لا جوغا agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Cabdi Xakiin Yuusuf Maxamed sidoo kale waxaan nala jooga xog hayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Kamaal Daahir Xasan Gutaale sidoo kale waxaan nala jooga safiirka safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ku leedahay Fatxudiin Cali Maxamed Osbite sidoo kale waxaan nala jooga qunsulka safaaradda Turkiga Cabdiraxmaan ugu muhiimsan oo ay ahayd inaan ku furfurano waxay hay'adaha Quraanka Kariimka hadii uu jiro qof hay'adaha Quraanka Kariimka noogu furfurayo oo soo dhaweyn lahaa أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. مصطفى حسن عبد الرشيد وحن جعلالها إنها تسعبكي موراك الإنسان. haddana dhallinyaradeena quruxda badneed maasha allah dhallinyaradeena ilaaha noo deysto waxay noo soo bandhigeen heesaheyni astaanta iyo xuriyadda hadda xuriyadeeni matalayeen heesihii aaway goormaa ladnaanaye lixdankii lugooyadii nadeysay 26 juun maasha allah waa maalmihii quruxda badnaa ilaahayow wadankeyga oo israaco mid dadkeena oo isku cadalfiyow oo qabiil iyo qabyaalad jirin yaa rabbi ma arki doonaa inta noo dhiman noo dhamaystir maalmihii xumaabo waa kana maanta meelaa ka taaganahay maasha allah meel fiicanaa ka taagana wax yaraa noo dhiman ducada aan badino ilaahay dadkeena inuu mideeyo qabiilkii qabyaalada qurankaa naga dhex saaro aan u barino baryada aan badino asxaabee marka maasha allah xafladina bacaadi ma ahayn oo ku dhaw wallahi halka xornimada iyo madax banaanida waa kaalin mar walba la ilaabo qiimaheeda aan la siinin laakiin haddaanay haweenka Soomaaliyeed maanta iyo maalintii horeba dhabarka u ridanin doorkooda oo aanay meel dheer ka soo dhalaalin Soomaaliya ma jirteen ummadda Soomaaliyeed ma jirteen inaguna ma inaan jirneen kaalinta haweenku buuxiyeen maaha mid la tilmaami karo erayga laba lagu tilmaami karo kasnaad qof kasta halkan jooga hooyadii iyo walaashii baa garab taagan oo gargaar siisay sidii uga maqan yihiin kulankan aynu caawa joognabay golaha iyo shirarka oo dhan uga maqan yihiin kaliya tana loogu adeegsadaa inay noqdaan wax lagu qurxisto sawirka iyo maqaamka haweenka Soomaaliyeed ha noolaadaan ummadda Soomaaliyeedna ha jirto iyaga dhabarka ku sitay haween la'aanteeda abaar adduunka ma jireen aba taagana gabdhaheena quruxda badan hidaay dhaqankiisa ugu soo labisteen in bacaadi ma ahan الله هيست ما عندي قال شيء ده هسا وحكي عبسنا كوبر هاي اللي يوقفته ما شاء الله مدح ذيني شرفت بدنت وزير ذيني وحفلة كسر قيب قلي دولة ذيني ضد كاني نمتلعي ما شاء الله إله نوديستو يو حكى له ماشي كمرنا ولا عليهن جبوتية إيه كان ما شاء الله ونسوق قرب استاجي حالي وصفي عن حفلة نوغلا قاتي قبلهنا عند هذه القروح البدن الهداية دقيق كله سحري عبالو لأنت هذا أوار ما شاء الله أبايال إماموين كانوا كلها إن بعاد ما هن ماشي أنا إليك سلامة إن إداوني سينا ملينا تاجر يا شيء كمدها ينحل ما شاء الله وإفرحة قليين هذا أمة سنتير جبوت we love you لما أنت ضواج على جبوت ما شاء الله جبوت ضد أو ما شاء الله ميلدر يجي يا لواي وصومالي أنت دبعتي دب سومريسي dad walaalona garab taagnaayeen ahaayeen badan karmaan Djibouti inta idinka wada salaam alaykum Djibouti ma sha Allah ardaydeena quruxda badnaayeen heesaheen wadaniga noo qaadayeen waa kuwa iyakane inaynu mar labaadna isu raacno insha Allah ta'ala Soomaaliya marnaba kala tagi mayso dal kasteedu tagnaa waxay ku nahay Soomaali waxa ay kulmiyay calankaas iyo luuqada iyo dalkaas si kasto la isugu dayo iyo dariiq kasto loo marana meel uu kala bixi kara ma jiro waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto hal kelmo oo khusaysa madaxda Soomaaliya madaxweyne xasan ugu horeeyo iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada waxaan leeyahay walaalayaalow nabadgeliyada iyo sharafta iyo karaamada aad haysataan dad baa u dhintay oo noloshooda u waayay waxaan rabaa inaad ka wada shaqaysaan midnimada Soomaaliya iyo jiritaankeeda taas aan idinku baaqayaa idinku waxaan ku soo gabagabeynayaa wasiirka arrimaha dibadda wasiir soo dhawow baan ku leeyahay marka koowaad aad baan ku soo dhaweynayaa
adiga iyo wafdigaagaba soo dhawaada baan leeyahay. waxaan kaloo soo dhaweynayaa nabadoon cabdinuur, nabadoon axmed diiriye cali oo isaguna halkaa martiino ku ah. nabadoon soo dhawow adigana. intaa kadib wasiir waxaad naga geenaysaa dalkii inaanu caafimaad qabno oo nabadgelyo haysanno, inaanu wanaagsan nahay oo aanu haysanno safaarad aad u shaqaynaysa, safiir iyo ku-xigeenadiisa oo u soo jeeda dadka inay u shaqeeyaan habeen iyo maalinba. wallaahi inaanaan faaninayn oo ilaahay u og yahay daqiiqad kasta oo la waco oo loo midaysan yahay. laakiin safiirku wuxuu ballan qaaday, anana aan ballan qaadnay inaan dhisno jaaliyad cadaalad ku dhisan community-a dadka u khidmaya insha allahu tacaala. aad baan idin salaamaya. caawa habeen farxadeed soo dhawaada baan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waddankeena burbur badan ayuu soo maray. xaaladii ugu wanaagsaneed, kabashadii ugu wanaagsaneed ayuu hadda ku jiraa. rajaduna waa waxa keliya ee hore noo wadi doona, hore noo soo socodsii doona. qolyaha Jabuuti baana wayna soo gaareen. maasha allah. Jabuutina waxay noo soo bandhigeen hees qurux badan. heestan waxay soo baxday maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadka Soomaaliya iyo Somaliland ka jiro. heestii ugu dambeeyay u qaadeen ee ku muujinayeen Soomaalinimadooda iyo sidii ugu weyntaa iyo sida u jecelin inaan nahna dad walaale ah. maasha allah. aqligooda abwaanka sameeyay, aqligiisa Ilaah u ziyaadiyo. Somaliland iyo Soomaaliyana waxaa leeyahay idinkan Ilaahay dhexdeena biyo qabow ha dhigo, cadowga idinku dhex jirna Ilaahay maaragtay ha idinka qabtaa idin leeyahay. Ilaahay idinkan aqli iyo fikir ha idin siiyo. dad waxaa tin aqli aadan lahayn. haddii waxaan ka hadlaa dadka oo madaxdan ka hadlaa, markaa usoo laabta dadka reer commentigana idinkani isbarqabta. meeshaan siyaasad waxa la dhahayaa jirto. anaka cadow ma nihin, Somaliland cadow kuma ihi. laakiin aniga reer xamar markii reer Muqdisho waxa laga sheego dhiigayga 100 buu tagaa walaalayaal. hal igu qaato ma fahateen. ugu dambeyn hadda waan ka soo baxay aniga meesha. xafladana hadda la bilaawanaysay. mujaahida inta ka soo tagay lidhaa qandhaa qabatay aan u cararay, asaga u soo cararay. farxiyos thank you xabiibti, adigana aad u baadsan tahay walaashay. farxiya isla soconay, waa baashaalnay meeshana. dhaantaa dheelona dhaantadana malka saymana fahmoono ma fahanteen. marka videoga share iyo like iyo commentigana hanaga hilmaamina. anigana maadaama wiilkii wax xanuunsiya la dhahay, wiilkii u cararay isbitaal inaan u wado. marka xafladeedii ma dhameysan xalay qabyaan uga soo tagay.